بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى xisaabtan qaadanayna maanta waxay ku saabsan tahay lägesmått xisaabta la yiraahdo xisaabta lägesmått la yiraahdo waxa loo xisaabiyaa saddexdan xisaabood medelvärde median och typvärde halkan waxaan ku haysanaa tool serie ka kooban 8 medelvärde markii la xisaabinayo waxa ay yiraahdaan summan av alla tal delat med antal medianna waxaa la yiraahdaa marka horeba in aad set tal i ordning kadibna talet i mitten typvärde waa vanligaste talet ama lambarka u badan ay kusoo laalaabto marka halkan waxaan ku haysanaa saan hore usoo sheegay tool serie waxaan isla fiirinaynaa ama ugu horeysiinaynaa xisaabta medelvärde tool serie ayaan haysanaa medelvärde medelvärde lika med tool serie haysanay wuxuu ka koobnaa 8 marka 3 plus 8 plus 12 plus 8 plus 14 plus 6 plus 17 plus 18 marka dela med antalet 8 ayuu ka kooban yahay det blir 10,75 ayuu noqday medelvärde medianen saan hore usoo sheegnay kooda hore waa inaad xisaabta si ay u kala horeyso u qortid median lika med 3 ayaa ugu horeyso 3 waxaa ku xigto 6 waxaa ku sii xigto 8 waxaa ku sii xigto 8 kaleeto 12 ayaa ku xigto waxaa ku sii xigto 14 waxaa ku sii xigto 17 18 ayaa u dambeyso marka saas ayay u kala horeysiinaysaa marka xisaabta dhexda ku jirta halkan waa laba xisaabood maadaama uu 3 iyo 3 halka ay noqonayaan marka xisaabta dhexda ku jira medianen waa 8 iyo 12 marka waxaad leedahay 8 plus 12 delat med 2 labaday u qaybsameen marka medianka halkan wuxuu noqonayaa 10 medianen lika med 10 miljoner typvärde saan hore usoo sheegnay typvärde waa vanligaste talet marka lambarka ugu badan halkan waxaa waaye typvärde lika med waxay ahayd 3 8 12 8 ku xigto 14 16 17 18 typvärde halkan waxaa weeye lambarka kusoo laalaabto ama ugu badan ee kusoo laalaabanaya waa 8 8 iyo 8 typvärde lika med 8 xisaabteena maanta insha allah halka ayay ku joogtaa
waa mahadsantiin daawashadiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.